agaasimaha guud ee ciidamada BMPF mudane Cabdirabbi Cabdisamed Maxamed ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee midowga Yurub gaar ahaan howlgallada EU NAVFOR Atlanta ee qaybta ka ah ilaalada badaha Soomaaliya. Agaasima Cabdirabbi oo ay weheliyaan saraakiisha sarsare ee ciidanka BMPF iyo taliyaha guud ee markabka ayaa ka wada hadlay sameynta habraaca howlgalka wadajirka ah ee BMPF iyo midowga Yurub ee dardargelinta howlgallada ka hortagga jiriifka iyo abuurista sumad u gooni ah oo lagu garto kalluumaysatada si loo kala sooco iyaga iyo burcabadeeda. Hindisaha saddex geesoodka ah ee Data and Information Management System ee la isku weydaarsanayo xogta iyo dhaqdhaqaaqyada badaha dalka kaasoo ay qayb ka yihiin wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland, ciidanka BMPF iyo howlgallada midowga Yurub ee ay maamulaan xarunta la socodka dhaqdhaqaaqyada badaha ee ciidanka BMPF ee MOC. sidoo kale intuu kulanku socday waxaa si wadajir ah la iskula qiimeeyay maxsuulkii ka dhashay wadaagista xogta falalka burcabadeeda iyo guulaha laga gaaray howlgallada mideysnaa ee lagaga hortagayay kuwaasoo ay qayb ka ahaayeen xafiiska la socodka dhaqdhaqaaqyada badaha dalka iyo howlgallada ee BMPF MOC, waxayna horseedeen in si dhow loola socdo xogtooda lana fashiliyo goor horeba isku daygooda abaabulan ee bad iyo bariba. dhinaca kale, agaasime Cabdirabbi Cabdisamed Maxamed iyo taliyaha markabka qaybta howlgallada EU NAVFOR Operation Atlanta ayaa hoosta ka wada xariiqay in si ka dhow sidii hore loo hormariyo howlgallada iyo iskaashiga xogaha amniga badaha si dhowna looga hortago goor horeba falalka amni darro ee ka dhici kara badaha oo ay ugu mudan yihiin burcabadeeda, argagixisada badaha, mukhaadaraadka, jiriifka iyo hubka sharci darrada ah. ugu dambeyn, agaasimaha guud ee ciidanka BMPF ayaa goobjoog ka noqday dhamaystirka tababar ay qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka badda ee BMPF kuwaasoo dhoolatus ku sameeyey mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee midowga Yurub iyadoona lagu leeliyey ciidanka howlgallada midaysan ee sugidda amniga badaha, shuruucda iyo u gurmashada shacabka, waxaana iska kaashada tababarkooda ciidanka BMPF iyo hay'adda EU Cab Soomaaliya.